maxay tahay sababta loogu dhagan yahay wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle maxaadan ogeyn oo ka qarsoon muxuu salka ku hayaa dagaalka lagu hayo wasiir Beyle su'aalahaas oo dhan waxa kaga jawaabaya barnaamijkan waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalkan share garayso like-na saarto adigoo follow soo dhahaya page-keena mahadsanid xildhibaanada ma ka dooday waa su'aal kale ima taal aniga waxa ii yaala inaan soo gudbiyay oo kabinetkaygi soo mariyay oo prime ministerkii warqad soo qoray oo xafiiska baarlamaanka tobnaad keenay inta ka dambaysa maxaan samayn karaa wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo 5 sano ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya lana soo shaqeeyay labadii xukuumadood ee Khayre iyo Roble farmaajana uu madaxweynaha ka ahaa wasiir Beyle waxa uu ahaa halka wasiir aan la bedelin tan iyo intii uu jiray nidaamka madaxweyne farmaajo kulamana uusan joogin jacayl iyo rabitaan ay u qabaan ee wuxuu kula joogay kalsoonida iyo sida uu u xafiday amaanadii loo dhiibay taasi oo bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF ay dhowr jeer hore kula taliyeen madaxda sare ee dalka inaan la dhaawicin hufnaanta wasaaradda maaliyadda iyo deyn cafinta Soomaaliya taasi oo si cad u sheegaysa inaan la bedeli karin wasiir Beyle oo muhiim u ahaa wasaaradda maaliyadda iyo deyn cafinta Soomaaliya haddaba xagee ayuu ka soo bilowday dagaalkan hadda ku socda wasiir Beyle markii uu dhacay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wuxuu mid walba isku dayay inuu jiito wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle si uu gacanta ugu dhigo dhaqaalaha dhinaca kalena uga oomiyo laakiinse wasiir Beyle waa diiday inuu cid gaar ah la safto wuxuuna istaagay meel dhexe isagoo farmaajo iyo Roble mid walba siin jiray mushaarkii uu xaq u lahaa waxayna ahayd tilaabo weyn oo Soomaalida iyo caalamkuba ku bogaadiyeen wasiir Beyle intaas kadib maxaa dhacay wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ahaa xildhibaan wuxuu waayay kursigii xildhibaannimo isagoo shir jaraa'id oo uu qabtay eedeymo culus ugu jeediyay ra'iisul wasaare Roble iyo xafiiskiisa oo xilligaas mas'uul ka ahaa qabashada doorashada wuxuuna yiri wasiir Beyle waxyaabo badan oo aan waafaqsanayn shuruucda maaliyadda oo aan diiday ayaan ku mutaystay cadaawad badan laakiin si hal qof 10 qof iyo 100 qofba waxa ka muhiimsan qaranka haddaba maxaa waqtigan loo beegsanayaa wasiir Beyle waxaa dhawaan la soo magacaabi doonaa golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya waxaana adag in laga reebo wasiir Beyle oo ay kalsooni iyo wada shaqayn buuxda ku qabaan hay'adaha caalamka ee caawiya Soomaaliya waxaana ku adag madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa inay waqtigan wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle dhaafiyaan wasaaradda maaliyadda iyadoo aan Soomaaliya laga cafin deynta lagu leeyahay waana caqabad weyn oo xilligan taagan sidoo kale waxa waayadan si hoose ku socday qorshe la rabay in maxkamad ugu yeerto wasiir Beyle kaasi oo lagu eedeynayo inuu lunsaday dhaqaale fara badan si la isaga horkeeno wasiir Beyle iyo World Bank iyo IMF looguna qanciyo inay joojiyaan wada shaqaynta tooska ah ee ay leeyihiin wasiir Beyle waxaana qorshahaas burburshay wasiir Beyle oo baarlamaanka la hortagay dukumiintiyo iyo saxiixyo muujinaya inuu baarlamaankii tobnaad horgeeyay xisaab xirka miisaaniyadda lamana oga qorshaha xiga ee ay ku wajihi doonaan wasiir Beyle oo hadda u muuqda inuu wadooyin badan ka soo xiray kooxdaas dagaalka hadda lagu hayo wasiir Beyle ayaa ah mid dhamaadkiisu yahay sidii loo dhaafin lahaa wasaaradda maaliyadda oo shaqo wanaag iyo ammaan ku mutaystay wasiir Beyle wuxuu wasiir Beyle shacabka Soomaaliyeed uga baahan yahay inay si buuxda u garab istaagaan una muujiyaan dareenkooda maadaama wasiir Beyle uu yahay wasiirkii ugu horeeyay ee caalamku ku qanco si cadna ay u sheegaan inuu ka maran yahay musuqmaasuq fadlan daawade haddii aad bilow ilaa dhamaad ila socotay muuqaalkan share garee oo gaarsii asxaabtaada